dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa saldhigyo militari siiyey 7 dal oo ka mid a dalalka ugu awooda badan dunida militari ahaan iyo dhaqaale ahaan. dalalka saldhigyada militari kule jabuuti ayaa ah dalal siyaasad ahaan aada u kala fog. haddaba wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa waraysi gaara la yeeshay doctor ismaaciil wacays oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele, isagoo ugu horreyn weydiiyey waa maxay faa'iidada jabuuti ay ku qabto saldhigyada ciidamada shisheeye. dhowr shay ayaa annaga faa'iido inoogu jirtaa. marka koowaad, dad badan oo reer Jabuutiya ayaa u shaqo taga oo reerahooga iyo naftoodaba iska masruufa kana masruufa. marka labaad, dadkaasi badan ee shaqaynaya marka la soo dhaafo hawlooyin badan bay qabtaan oo ay qudhadooduna waxbarasho u ah oo ay ku dhow toole hadday xitaa meesha ay ka tagaan ay magaalada dhexdeeda iyo waddanka dhexdiisa wax kaga qabsan karaan. waa qaybta labaad. qaybta saddexaad ee xagga shaqaalaha waxa weeye iyaga qudhadoodu mashruucyo badan bay waddanka ka dhex wadaan oo laakiin ku tiirsan xagga baahidooda ah. qandaraasyay markaa bixiyaan. qandaraasyada ay bixinayaan dee dadka reer Jabuuti way u madax bannaan yihiin inay ka qayb galaan. kii kartidii iyo aqoontii u leh qandaraasyada hadduu helo waxay u tahay waxa weeyaan soogal dhaqaaleed oo aad iyo aad u xiiso badan. waxaa kaloo jira dhinacan annagu awood kororsi la yidhaahdo ama dee afafka qalaad capacity building lagu yidhaahdo. waxa weeyaan waa dowlado iyo wadano naga dhexeeyaan xidhiidh diblomaasiyad iyo siyaasadeed iyo wada shaqayn. waa dalal markaa saldhigga militari lama siinaye marka horeba cilaaqaad wanaagsan xagga diblomaasiyadda uu ka dhexeeyay Jabuuti oo kale bilmadan. waa sidaa weyn. wadanadani waxa weeyaan wadano muddooyin badan aan wada shaqaynaynay oo muddooyin badan arrimaha laga soo wada shaqeeyey weeye. markaana iyaga qudhadooda wixii ay kugu dhaamaan adiguna aad wax ka baranaysid weeye. taana waxa weeyaan waa xaggii ciidanka weeyaan. xagga kaalmayntana way ka qayb qaataan baa la is odhan karaa soo maa. sida runta marmarka qaarkood mashruucyo yaryar oo social ah ama dee bulshada wax u taraya ayay sameeyaan. ama dariiqay xaadhaan ha noqoto oo dariiqadan la yidhaahdo feeder roads dadka hijidaha jooga wax lagu gaarsiinaya xaadhaan meelooyinka dhaadheer oo iskoola yaryar ka dhisaan dayactiray ku sameeyaan meelooyinka caynkaasa. marmarka qaarkood xitaa iyaga oo xagga caafimaadka ka qayb qaato oo ciidan dad dira oo neersiyaal iyo dad caynkaas oo meelooyinkan dhibaato gaari hadday timaado ay wax ka qabtaan baa iska jira. marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalada yare laga faa'iidayo. maxay u baahan tahay waxa weeyaan dowlad adag, dowlad waxa ay doonaysona garanaysa, karti siyaasadeed iyo diblomaasi leh oo ciidamadani waxayna doonayaan haddaba waxay doonayaan in dhulkan ayna ku samayn oo ay ka joogsanayaan waa inay jirto. marka caynkaasoo kale dee ciidamo ay beesas fara badan waddan ugu samaystaan sidan Jabuuti oo kale kaalin caynkeeya ayay ku yeelan karaan nabadgelyada iyo xasiloonida waddankii iyo degmadaba. runtii waxaa la moodaa inaad arrimahan iminka ciidamada aad si fiican aad uga baaraan degtay ood u fiirsatay. Jabuuti waxaa lagu yaqaanaa waxa horta waa nabad. nabadda salkeeda runtii waxa weeyaan waa ciidamada badan ee jooga iyaga qudhadooda ay waajibaad iyo hawl ay ka saaran tahay inay isdaafacaan waddankeenina nala daafacayo nala ilaalinayo. okay, annana dee ciidankeenu hawshiisii uu wataa uuna ku jiraa teediina uu qabtaa. haddaba waxaa soo raaca haddaba waxa weeyaan qof alla qofka doonaya inuu meel uu maalgelin uu ku sameeyo oo ajnabiya wuxuu u baahan yahay marka koobaad waa nabad. dee regionkeennana saad u ogtahay meesha nabadda lagu yaqaano waa Jabuuti. nabadeenna waa annaga ka wada hadalna wixii saloo ahaa. marka waxa weeyaan waa meel la soo eeg. hadday matalan baanu dee waxaad ogeyd waad iska ogtahoo dee in yar waxaan dhulka Jarmankan joogay ciidan Jarmanaa jooga halkan. marka haddii dadka Jarmankii oo maalgelin ku sameynaya dhulkani laga yiraahdo war waddankaasa geeska Afrika jiro ciidan Jarmani ay joogaan, waad iska garanaysaa horta inuu xagga nabadgelyadii dad uu isku haleynaya inay ku horeeyaan inuu garanayo. sunni baa imanaysa ka dhigantay markuu lagu yiraahdo ciidamadiina meesha way joogaan inay maalkoogii horaan waa caynka de uu arkay in lala ilaalinayo wixiisii waa lala ilaalinaya iyadoo ay waliba taa u dheer tahay sharciyadii waddanku uu lahaa ee la dejiyay oo isagana xitaa si gaar ah u eegayay dantiisa ilaalinta lacagtiisa iyo hantidiisa iyadoo ay jirto haddana dad kale tu isku halaynayo ayaa la jooga. saad ogtahayna waliba imika nasiib wanaag waxa ciidanay halkan inala jooga mid aanan safaarad joogta ah halkan aan ku lahayn ma jirto. sidaa daraadeed baa haddana waxa la wixii militariga la socday ee siyaasad iyo diblomaasi ahaaba ee qudhadeeda dadkii danjirayaasha ay ilaalinayeen ay inala joogaan oo taana mar
mar kasti laga wada hadlaa oo xidhiirkaasina uu yahay tu jireen ah oo gacanta lagu hayo. waa miisaan kolka isla socda sidan aad ka dhawaadsay iminka waxaasoo ciidamo jooga amba saldhig military Djibouti ku leh safaaradahoogina way joogaan oo xaggii diblomaasiyadda marka way isku dheelitirnaan. waa caynka oo marka ciidanun lama sheekaysanayo si ciidan ahaan lama sheekaysanayo waa dawlad oo ciidanka sidaad u ogtahayba waxa hoggaan u ah waxa weeyaan waa diblomaasi iyo siyaasad dawladeed tii hadday meesha ay ka maqan tahay matalanba inkastay meesha ay iminka aynan ku jirin iminka wadankan aan jaarka nahay Somaliland oo kaleete haddaan example u qaadano kolkaad aragto wadanaan meeshii aan deganayn oo siyaasad ahaan maqan kolka uu ciidan uu keeno hadday dhibaato dhacdo iyaa lala sheekaysano sidee wax looga qabani ma muuqatade laakiin iminka halkan haddaad iminka eegto Mareykanka nala jooga safaarad weyn oo Mareykan halkan joogta Jarmanka nala jooga safaarad Jarman nala jooga Chinese-ka nala jooga safaarad Chinese nala jooga marka waxay ka dhigan tahay waa wax ay siyaasadii iyo diblomaasiga hogaankii siyaasadda iyo diblomaasiga waxaan ku xidhan oo ka dambeeyay ciidanka horta haddii uunan politiigi iyo diblomaasigi hadagii haduuna jirin marka waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan waa waxaad isku keenaysaa waxa weeyaan waa ciidan waxa la wuxuu sameynayana aanad garanayn marka intaad xagga dambe ka soo qaban lahayd waxa la qaatay inaad horta saanta xagga hore ka tasho. kaasi waxaa Dr. Ismaaciil Wacays oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo magaalada Djibouti ugu warramiyay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.